runtii Soomaaliland waa dal dimuqraadiya doorashooyin badan oo ay ka soo dhaceen iminkana waxaynu u diyaarnahay in doorashooyinkii madaxtooyada baarlamaanku inay dhacaan sidaad ogtihiin oo reer Soomaaliland ka dhigsan yihiin isqaqabsi badan waa ka yimiday arrinkaasi waa kii maxkamadda gaadhay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga dalka Soomaaliland waa ku dhawaaqay muddada doorasho ay dhacayso inayna dib uga dhacaynin shacabka reer Soomaaliland golayaasha qaranka iyo saddex xisbi qaranna waan ku heshiinay hadda waxaad ogtiin diiwaangelintu ay noo socotay in hakad ku yimiday bila laakiin ay bisha soo socota hadii ilaahay yiraahdo tan marka dhamaato shanteeda diiwaangelintu Hargeysa si rasmi uga bilaabi doonto abaaro iyo baahsan baa markii hore jiray laakiin hadda ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin nabcooyinkii baa inoo dahay marka sabab maanta aynu uga sheekeynay in doorashada Soomaaliland ay dib inooga dhacdo runtii anagu ka xisbaan ma arkayno beesha caalamka ee runtii ama international community inaga taageero dhinaca dimuqraadiyaduna runtii waxay diyaar u yihiin in dalka doorashadu waqtigeeda ay ka dhacdo madaxweynuhuna dhowr jeer oo runtii aanu shirar iskugu nimidnay mar walba wuxuu lahaa doorashadu waqtigeeda dhacaysa markaan waxaanu aaminsanahay xisbi wadani ahaan inay doorashadu ku dhacdo waqtigii loo cayimay ee loogu talagalay kordhinta hadii ay guurtu sameeyaan sidoo ka digaysan ama xisbihan arintan baqma ka diraysan muddo kordhin dambe ma dhacayso sababtuna u dhacay waxa weeye maxkamadda oo hay'adii ugu sareysay dalka ayaa ku dhawaaqday inay doorashadu waqtiga ay dhacayso ku dhawaaqdo marka maanta wax muddo kordhin la yiraahdo guurtu mar dambe ay nagu sameynayso ama wax nagu imanayo ay hadda muxuu ahay aynu ka walwal qabnaa ma jiro kaliya waxaynu u diyaargaroobaynaa diiwaangelintu inay nooga dhacdo saddexda gobol ay noo haray dabadeetana loo diyaargaroysay dalka doorasho xora oo xalaal uga dhici lahayd madaxweynuhu taasoo ballan qaaday saddexda xisbina waanu isla qaadanay iyo labada gole ka hadalanta keenaysa in xukuumaddu ay ka hadlay weydo oo dhinacan baaqan ay soo saareen ama walaacan ay qabaan beesha caalamku taayada qudheeda miyaan loo qaadan karin in dib u dhac ku iman karo de kulli xukuumaddu mas'uuliyadda loolkeega inay iyadu qaadato iyadaa wax xaq leh laakiin Soomaaliland waxay maanta inaga shacabka reer Soomaaliland dantooda ku jirtaa inay doorashada waqtigeeda dhacdo si aaminka beesha caalamku inagu sii kordho